dalada isku xidhka dhalinyarada iyo wacyigelinta Soomaaliland sayna ayaa xarun ka daafurtay deegaanka Qorlugud ee ka tirsan gobolka Buuhoodle munaasabadan ay ka soo qayb galeen uqaal waxgarad dhalinyaro culimadiin iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ugu horeynba munaasabadaas waxa ka hadlay gudoomiyaha dalada isku xidhka dhalinyarada iyo wacyigelinta sayna deegaanka Qorlugud isagoo ugu horeynba uga mahadceliyay bulshadii ka soo qayb gashay xafladda daafurka daladani kan xalfadan maanta aynu isugu nimi waa ururka dhalinyarada ee ku midowday fikirkeeda iyo muruqeeda iyo maskaxdeeda ku midowday ee ka tirsan gobolka Buuhoodle gaar ahaan degmada Qorlugud daafurkeenan ama xalfadeenan bishu markii ay ahayd bishii labaad 2016 ayaa halkan ururka sayna u yimi iyadoo ay qiimeeyeen baahida ama dhalinyarada muslimaadkeedu inuu degmadan wax weyn u yahay sidaasay dalada sayna ugu goorisay inaanu ka mid noqono waanu codsi ugu dhiibanay way naga aqbaleen markaa daafurkeedii koobaad ee xalfadii aynu sugnay maanta alla qadaray sidoo kale halkaasi waxaa la ka jeediyay bulshadii ka soo qayb gashay xafladaasi iyo xubno ka tirsan dalada isku xirka dhalinyarada iyo wacyigelinta sayna ee ka aasan deegaanka Qorlugud waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ka soo qayb galay marwo iyo mudane waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan halka ku daafuraynaa xafladii ahayd dalada sayna oo maanta oo jimco aan ku daafurayno waxaan leenahay ku soo dhawaada marwo iyo mudanaba ururka dalada sayna dhammaan baa dhalinyarada Soomaaliland ee dalada sayna meel kasto ay joogaan salaanka bacdi ilaahay baa mahadle goobtan isugu keenay si nabadgelyo leh si aynu qabsano xafladan iyada intaas oo qof oo caafimaad qabta rabbiga isugu keenay si nabadgelyo leh ayaa mahadda koowaad iska leh mahadda labaadna waxa iska leh dhamaanba ka soo qayb galayaasha xafladeedan nagu qadariye nagu qiimeeyay nagala soo qayb galay ayaa mahadda labaadna iska leh hadaanu nahay dalada sayna waxaanu nahay dhalinyaro ku midoobay fikirkooda iyo raayigooda si ay degmadooda u hormarin lahaayeen ee ay u gaarsiin lahaayeen heerkan ay maanta joogto dhinacyo badan sida jahliga la dagaalanka jahliga qabyaalada maxay tahay muqaadaraadka dhalinyarada maanta degmada Qorlugud ayaa si aanu horumarin lahayn aanu isugu midoobnay waa urur ka kooban 40 qof oo ku midoobay 40 dhalinyaro oo ku midoobay si ay u horumarin lahaayeen degmadooda heerkan ay maanta joogtana uga qaadi lahaayeen una gaarsiin lahaayeen heer caalamiya sida ay gobolada kula qaybsato hadnaqayaa salaanta islaamkana ku salaamaya ururkan halkan nagu marti qaaday ama daladan halkan nagu marti qaaday ee la yiraahdo sayna ka tirsan urur weyn oo dalka gudihiisa iyo dibadda ka jira ayaan halkan ka salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa barakaatuh waxaan kaloo yana salaamayaa khiyaarta kale meesha ka soo qayb gashay guddiga degmadu ka mid yahay xildhibaanadii ay ka mid yihiin waxgaradkii kale ee degmadu uu ka mid yahay iyagana salaanta la mid ah qiimo leh baan ku salaamayaa inta kadib kelmadaan odhanaya waxay tahay ururkan runtii aad iyo aad baan ugu farxay magaca uu leeyahay iyo qaabka uu u samaysan yahay ee ah ururka wacyigelinta iyo midnimada ama isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland runtii aad bay ii soo jiidatay oo yaqtaay xafladaha intan ka soo qayb galo laakiin ururkan waxa igu khasbay inaan ka soo qayb galo qaabka uu u samaysan yahay baa runtii mid aad iyo aad loogu dhiiran karo mudnaanna waxaa leh dhalinyaradan ku midowday dalada sayna ee soo jireenka ah ee muddada dheer soo jirtay ee dalada waxqabadka ah ee dalka dibadda iyo gudihiisaba ka jirta maanta haday laga daafuray degmada Qorlugud inkasta ay muddo dheer oo waxaa joogay koox naftood hurayaal oo barnaamijka ka shaqeynaya baa joogay oo ka mid yahay jaamac
وأرنتها كل شقين أبارتنا كلا غير قاتل ويشوجين ما هكو ما أنت أقوله حفلة دودي كوال هالنقطة ما أنت وكوه هراي سوق الرصدي أو قبطي أو مقالة حق قبطي أو آتو يو التكابة ثنتي هوشة يورهذا كريه شراء وركليه ناو مدن يا سو كلا يا أو كلا نقولي برجام كلا نقولي أو هراي وشري رصدي كوا كلا نقولي أنو هو ورنا شري مو نقولي وركاس ورهلا وركبر برشقين وكذا على شقين يبقى وركان ثنتي وهلا ما أنت هذا عديسين سيننا أي هيليو هو بيدلد تاجنت هاي عاد ما نقول فرحسنا يوارد يسودوين وأيلا حسن سليمان أيلا بي أم مقالة برعو